dugsiyada al irshaad schools السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي قيمة يشرف له وحويان معلم أحمد عبد الرحمن ويدري دونا مادة صومالي جاي فصلك شناد 10 كيلو مانتا وعطب خلابات 10 كيس الشناد بقى بقول يلا بقى طبعا وعين سكوسو تشرني ما يأكل الدون وعين صادق جنّي ما هي ده عين صادق جنّي وحبي نور شيء جيين si aynu ugu qaadano way aragnimo uga helno nolosha ugu dabaqno wixii waxtar leh uga u sameeyno wixii dib lana uga hadhno aynan u sameeynin bayno maahmaayadaas ay noo soo sheegayeen oo inoo bariyeen waxaynu kala soo dhiganay gooreynta maahmaada iyo xilliga aynu maahmaada isticmaalayno waa goorma ma mar walba mise waa mar xaalad noocaasi aynu soo marto inaynu kala garanno taasina waa muhiim ujeedada maahmaayadan waraabaha ku saabsan maahmaahada waraabaha ku saabsan ujeedooyinka aynu ka leenahay waa kuwan barashada marka hore qaar ka mid ah duurjoogta dalkeena ku nool qodobka labaad aynu ka baranaynaa maahmaahadan waxa weeye magacyada waraabaha sida dhidirka dhurwaaga cantaatirka iyo candhadheer 3 barashada maahmaahiyo la xidhiidha waraabaha inaga oo xayawaan ka mid ah xayawaanadeena duurjoogta ka soo qaadan hal qabsi laakiin ujeedadu macnuhu ma aha waraabe way ka fogti waxa weeyaan macnaheedu sida aynu u dhigayno uma dhigna ee waxay noqonaysaa macna qarsoon oo ay tahay inaynu qaadano inaguna ogaano maahmaada koobaad waxay in leedahay waraabe dhankii loo eriyaaba waa u bannaan maahmaadani waxay inoo sheegaysaa qof aan marka hore ujeedo lahayn iyo hadaf uu ku socdo haddii la eriyado ama dib loo geysto meeshii ka soo horbaxda uu isku qaadaya waayo markii hore ayaanu qorshaysanin meel uu ka baxo iyo target uu ku socdo ayaan jirin waraabe daalay diritiisa waa loo tagaa maahmaahdani waxay ka hadlaysaa in cadowgaaga marka uu itaal daran yahay la weeraro maahmahdani waxay noo sheegaysaa in cadowgaaga markuu diyaarsan yahay ee uu foojigan yahay la iska ilaaliyo oo laga fiijignaado oo laga digtoonaado si aan waxyeello ku gaarsiin waraabe canaanay waase walaalkii maahmahdani waxay inoo tilmaamaysaa sida ka muuqataba laba waraara iscanaantay waxay noo tilmaamaysaa qof dhaqan xun qof kaloo dhaqan xun wixii uu sameeyo kuma canaananayo waayo de isagii baa sameynayaba haddaad ficil xun samayso saaxiibkaaga ficilka xun sameynaya ma oranaysid hebel see tahay waad khaldan tahay maxaad saa u samaysay kuma oranaysid waayo de adigii baa ficil xun sameeyey sababtaa awgeed baa loo yidhi waraabe canaanay waraabuhu wuxuu u dhacaa xoolaha dadka habeenkii iyagu xaraysan uu boobaa uu u dhacaa qaar buu dilaa qaar buu ka in la cararaa oo cunaa u marsadaa waraabaha kale isna habeenkii markay dadku seexdaan masaakiinta ee xoolahoodii haysta ee iska nabad seexdaan waraabaha kale ee soo boobaya soo xadaya ee soo dhacaya waraabaha kale de kuma qabsanayo kuma canaananayo way deesbow sameeya sababta awgeed baa loo yidhi waraabe canaani maamada shanaad waxa weeye waraabihii hooyadii cunay habaryartiina uga mareeyo maamaadani waxay inoo sheegaysaa qofka aan dadka wanaagsan dadka xaq ku leh ixtiraamin dadka qofka aan marka horeba dadka xaq ku leh aan ixtiraamaynin dadka almahuraanka ahna ixtiraami maayo waraabihii hooyadii cunay habaryartiina uga mareeyo layliska sharax ay layliska 10 keenan maamayada waxa ka qoran 3 way ka badan yihiin intan waxay ku yaalaan bogga 113 wad ka soo wada shaqeynaysan dhamaantiin maamada koobaad waraabaha kaciya iyo ka aamusa keeba daran sharax maamadaas waxay ka hadlayso waraabe iyo caruuri iyagoon is aqoonin
iyagoon is arag ayay culloobeen waraabe iyo caruuri iyagoon is arag ayay culloobeen maxaa looga jeedaa maamaadan kale ee saddexaad idinkoo ku qosli doonaa waxay tilmaamaysaa soo sharaxa waxay tilmaamayso waraabe isagoo xaar badnaa ayuu xabku cunay bal maamaadaas in la kaashataya iyo adigu fikirkaaga iyo garaadkaaga ka keentayaaba si fiican oo qiimo badan uga soo shaqee oo qiimo badan almarid yar dul mar kooban ujeedada casharkan barashadiisa waxa weeye barashada qaar ka mid ah duurjoogta dalkeena ku nool magacyada waraabaha sida dhidirka dhurwaaga antaatirka iyo candhadheer waa waraabaha dhadig ee dhala candhadheer baa la yiraahdaa antaatir waa waraabaha lab weeyaan dadku waxay jinsigu wuxuu qaybsan yahay lab iyo dhadig xayawaanka sida bini'aadamka ilaahay uu kala qaybiyay lab iyo dhadig ayaa xayawaankana lab iyo dhadig loogu kala qaybiyay say tarankoodu u sii jiro oo u tabarkoyn waxaanu ka baraynaa barashada maamaahiyo la xidhiidha waraabaha maamaahiyada waraabaha la xidhiidha aadamaha ayaa ku tusaale qaadanaya oo ay macnahoodu ku qarsoon yahay waraabe dhankii loo eryaaba waa u bannaan macnaheedu waxa weeye qof aan mabda marka hore lahayni meeshii uu isku qaadaaba waa u bannaan oo wixii uu khaldaaba dee marka hore aan waxba u qorshaysnayn inaan waxba khaldin ama aan digtoonaanin waraabe daalay dirirtiisa waa loo tagaa macnaheedu waxa weeye waraabuhu waa cadow sidaa darteed cadowgaaga marka uu itaal daran yahay baa la weeraraa laakiin cadowgaagu marka uu foojigan yahay hu badan haysto laguma degdegay waa la iska ilaaliyaa waa laga durkaa waa laga fogaadaa si aan waxyeello kaaga soo gaadhin waraabe canaanay waase walaalkii macnaheedu waxa weeye maahmaadani waxay ka tilmaamaysaa qiimaha badan lihi in qofka dhaqanka xun lihi qof kale oo dhaqan xun wuxuu sameeyo aanu ku canaanan sida waraabuhuba habeenkii reeraha u dhaco kiisa kale ee reeraha dhacaya aanu ugu qabsanaan oo reerku uu hurdaaye maxaad xilligan ugu tagtay war xoolaha soo jeedo maad wax ka soo cuntay dee waraaba kale kuma oranayo waayo day isagii baa sameynaya waraabe hooyadii cunay habaryartiina uga mareeyo waxa weeye qofka aan hooyadii ixtiraamayni iyo mahraanka iyo waalidkiisa qofka aan waalidkii ixtiraamin waalidkaaga waa inaad ixtiraamtaa xaq weyn buu kugu leeyahay waalidkaagu inaad ixtiraamto oo dhageysto jiritaankooda ayaad ku joogtaa adigu ifkan waadna ku jirtaa waxa weeyaan macnaheedu markaas inaad ogaato xaq ay kugu leeyihiin marka qofka aan waalidkii ixtiraamaynin qof kale xaq ku leh de ixtiraami maayo waraabihii hooyadii cunay habaryartiina uga mareeyo macnaheedu waxa weeyaan qofka aan waalidkii ixtiraamaynin cid kale oo ka weyn oo waalid u ah ama si aan waalidba u haynin qof ka weyn ah ma ixtiraamayo waxaynu ka bararaynaa in qof kastoo inaga weyni uu waalid inuu yahay oo aynu ixtiraamno oo aynu ka dambayno haddii kale oo aynu ixtiraami weyno waxaynu noqonaynaa waraabaha hooyadii cunay ee habaryartii aan uga raynin waxaad arkaysaa carruur dadka waaweyn caaya waxay halkaa inoo sheegaysaa inay hooyooyinkood iyo aabayaashoodna xumaan u hayaan waayo kaa markay u reeyaan bay kuwa kale u reynayaan bay maamaadu inoo tilmaamaysa taas waynaynu aad isha ugu haynaa leeliska ka soo shaqeeya boga 113 waa macallin axmed cabdiraxmaan oo idin leh cashirku maanta halkaa inoogu joogo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala dugsiyada al irshaad schools